tuulo yar oo ku taala Jabaan ayaa waxaa ku noolaa nin la yiraahdo Takasugembe. Wuxuu la noolaa hooyadiis, waa uuna shaqayn jiray. Markaasi markasta uu tago wuu ka walwali jiray hooyadiis. Markii uu guriga ka soo laabtana waxa ay ka caban jirtay hooyadiis inay cidlo saa'id dareemiso. Markaasi wuxuu ku fakaray inay ku fiican tahay hooyadiis inay hesho cid markaasi u weheliyeesha iyada. Maalin isagoo shaqadiisa u socdo ayuu markaasi wadada isagoo maraya ayuu wuxuu maqlay ciidab bisad yar. Markii uu geeska eegay wuxuu arkay bisad yar oo dhala oo markaasi ag taagan hooyadeed meydkeeda. Aad ayuu uga naxay, kadibna wuxuu go'aansaday inuu guriga u kaxaysto. Wuxuu geeyay guriga kadibna wuxuu siiyay hooyadiis, taasoo aad ugu faraxday inay ugu dambeyn hesho cid ugu weheliyeesha. Isla markaasi farxad ayuu dareemay maadaama aysan hooyadiis cidla dareemi doonin oo mar walba uu shaqada ka soo laabtana markaasi uu qalbigiisa u qaboobayo. Sanado ayaa ka soo wareegay. Habeenada ka midna isagoo asxaabtiisa la qaadanaya waqtigiisa ayaa asxaabtiisa mid ka mid ah ka wareystay bisada guriga u joogta. Takasu wuu dhoola cadeeyay kadibna wuxuu uga sheekeeyay sida ay farxad aad u tiro badan gurigiisa u keentay. Mid ka mid ayaa wuxuu weydiiyay imise jidhaa bisadu. 7 sano jir ayuu ugu jawaabay. Saaxiibkiisa markaasi wuu eegay, ma taqaanaa waxa ay ka sheegaan bisadaha waaweyn? Maxaa weeye ayuu weydiiyay. Waxay yeeshaan awoodo bini'aadanka ka baxsan. Arrinta kaliya laga joojin karo inay noqdaan yokaina waxa weeye in sayntooda bar laga jaro oo la gaabiyo. taas bini'aadanimo maaha ayuu dhahay Takasu. Weligee saas uma dhibaateyn doono yaamideyda. Saaxiibkiisa kale ayaa ka qasay, laakiin waad ku qasban tahay. Waa arrinta kaliya sameyn kartid si bisadaada yokai u noqon oo nafsadaada u badbaadiso. Markaasi aad ayuu u xanaaqay kadibna wuxuu ku yiri, labadiina waxaad iska dhajisan khamriga, hadda guriga ayaan tagayaa. Markii uu guriga gaaray, guriga dhan wuxuu ahaa mugdi, aan ka ahayn faynuus kaliya ka ifaysay asaga qolkiisa. Wuxuu isku sheegay in hooyadiis seexatay faanuusihii dhandamisay oo hal xaban isaga u reebtay. Markii uu qolkii u dhawaaday, wuxuu arkay hooska bahal aad u weyn oo ku dhex neekinaya qolkiisa dhexdiisa. Asagii markii uu qolkii u soo dhawaaday, bahalka wuu istaagay, kadibna qolkii markuu soo galayba bahalkii meesha maba joogaba. Kaliya dhogor madow ayaa waxay agtaalay faanuusta. Markii uu fiirshayna markaasi wuxuu ogaaday inay leedahay yaami. wuxuu furay qolka hooyadiis kadibna wuxuu arkay islaantii hurdo quurinaysa. Kadibna wuxuu eegay dhinacii ay yaami seexan jirtay. Markaasna wuxuu arkay meesheedii oo bannaan. Takasu wuu khamraysanaa wuuna hurdaysnaa. Wuxuu go'aansaday inuu seexdo kadibna raadiyay bisada markii uu subaxa soo kaco. Markii uu soo kacay, wuxuu ka raadiyay bisadiisa meel kasta, laakiin si kasta oo u raadiyay waa uu ka waayay agagaarka dhan. Maalmuhu waxay socdaanba, hooyadiis depression ayaa ku dhacay, kadibna way iska aamustay. Wuxuu ku yiri xayawaan qalam ku keenaa, laakiin way diiday. Waqtigeedoo dhan waxay ku qaadatay inay markaasi qolkeeda ku jirto aan waxba qabanin kaliya daaqada fiirinayso. Takasu wuxuu markaasi u maleeyay hooyadiis inay xasuus beel ku dhacay amase ay depressionkii ku sii fogaanayso. Markii ay saaxiibadeed u yimaadeen si u soo booqdaan, ayada ma aysan garan, mana aysan rabin inay la hadasho. Cuntadii loo keenay ma aysan cunin, aan ka ahayn hal mar ay kalluun qaadatay. Habeenada ka mid ah, markuu soo laabtay wuxuu arkay hoos ka imanaya qolkiisa bahal lugihiisa ku taagan oo niikinaya laambada agteeda, gacantana ku haya maro. Takasu qolka ayuu ku orday, sidoo kalena waxba muu helin. Mar kale ayuu wuxuu fiirshay dhulka wuxuuna arkay markaasi inay dhogor madow ku taasan tahay. Waa yaami tinteeda, laakiin agagaarka dhan kamuusa helin bisadiisa. Wuxuu arkay mar kale hooyadiis oo daaqada taagan oo waxba dhahaynin. Kadibna wuu u tagay wuxuuna weydiiyay inay aragtay yaami iyo in kale. Way soo eegtay waxayna ugu qaylisay sida bisadii kale. Takasu wuxuu gartay hooyadiis markaasi inay la waalatay waayitaankii ay weyday bisadeedii. Markaasna wuxuu go'aansaday mar dambe inuusan arrinta yaami soo hadal qaadin. Subaxdii xigtay, saaxiib asxaabtiisa ka mid ayaa u yimid wuxuuna u sheegay inuu gurigiisa aaday si uu alaab uga soo qaato. Wuxuuna arkay hooyadiis oo si la yaab leh u dhaqmaysa. Saliidda ayay ka leefaysay faanuusta ayuu dhahay markaasi. Markii aan guriga galayna ima aysan garan, waxay bilowday inay u qayliso sida bisadii kale. Way xanuunsan tahay ayuu dhahay asagoo saa'id u murugaysan. May waxaan u maleynayaa in lagu jiro ayuu dhahay saaxiibkiis. Waxaa laga rabaa inaa intaa samaysid, caawa albaabka hore ka galin, marnaba lama rabo inay ogaato inaad adiga guriga timid. Kadibna daaqada qolkeeda ka fiiri, haddii ay tahay waxaan u maleynay inay tahay waxaad ogaan doontaa markaasi xaqiiqada.
Taakuso ma uusan aaminsanayn waxyaabaha ruuxaanta ama waxyaabaha aan bini'aadanka ahayn, laakiin wuxuu u baahnaa inuu ogaado waxa saaxiibkiis sheegay inay run tahay in kale. Waxa uu markaasi furay daaqadda, kadibna qolka ayuu eegay. Waxa ka soo warbaxayna waxay ahayd wixii ugu cabsida badan noloshiisa. Meeshii hooyadiis waxay ahayd Yami oo qabta dharka hooyadiis, markaasna ka weyn sideedii hore, waxayna markaasi ruugaysay meydka jiir yara. Taakuso isla markiiba albaabka hore ayuu ka soo galay, wuxuuna ku orday qolka hooyadiis. Halkii maruu indhaha isku qabsadayna hooyadiis ayaaba meesha soo istaagtay. Markaasi wuxuu yiri saaxiibkiis wuxuu dhahay inuu madaxa ka galay oo waxyaabo uu hadda istusayo garabka ayuu ka taabtay, kadibna way soo jeesatay waxayna ugu qaylisay sidii bisadii oo kale. Wuxuuna markaasi hubay inay indhaheeda sidii bisadii oo kale ahayd. Arrintan oo dhan markaasi wuxuu u sheegay saaxiibadiis, kuwaasoo markaasi u sheegay sida kaliya loogu guuleysan karo yookaaga inuu yahay dhuunta in laga jaro. Taakuso aad ayuu uga naxay. Macquul taasi ma aha, waddo kalaa laga yaabaa inay jirto. Ma xasuusataa marka ay dhahaysay seenta ka jar? Saaxiibadiis markaasi waxay u sheegeen inay arrintaasi ka daahday. Bisada lagama yaabo qaabkeeda dhabta inay ku tusto, waxay iska dhigaysaa hooyada, midaana hooyada ma ahan. Taakuso aad ayuu u murugooday. Haddaba meeda hooyaday? Haddii waxa sheegaysa ay run tahay, taasna ay Yami tahay, meeda hooyaday? Xagee bay aaday? Maxaa ku dhacay hooyaday? Saaxiibadiis madaxa ayay ruxeen. Ma ogin, waxa koowaada samaynaysid waxay tahay inaad ka takhalustid yookaaga guriguu jooga. Taakuso guriga ayuu ku soo laabtay, asagoo mindi afaysan gacanta ku wata. Qolka hooyadiis ayuu markaasi soo galay, asagoo gacantiisa saaid u gariirayso. Hooyo ayuu si tartiiba u dhahay. Hooyadiis joodarigeeda ayay ku fadhiday, wayna sii jeeday. Wuu u soo dhawaaday, kadibna gacanta ayuu garabka ka saaray. Isla markiiba way soo jeesatay, wayna qaylisay iyadoo soo weeraraysa. Taakuso gadaal ayuu markii hore u baxay, kadibna wuu soo jeestay, wadnaha ayuuna ka gashay mindidii. Sidii bahalka ayay u qaylisay, kadibna dhulka ayay ku dhacday. Ilbiriqsiyo gudaheedna wuxuu arkay meydka bisadiisa oo dhulka taala. Meeda hooyaday? Ayuu weydiiyey meydka bisada. Maxaad ku samaysay hooyaday? Ayuu dhahay, kadibna feer ayuu dhulka ku dhuftay. Kadibna wuxuu arkay alwaaxyada oo midkoodkiisu leexday. Markaasi uu ka wada leexshay, wuxuuna arkay in dhulka markaasi lagu qariyay lafaha xayawaano yaryara iyo sidoo kale lafaha hooyadiis oo aad u cad, gebigiisaba hilibkii oo dhan markaasi laga leefay. Taakuso murugo darteed ayuu wuxuu bilaabay inuu la ooyo. Markaas ayay ahayd markii uu maqlay ida bisad yar. Geeska markii uu jeestayna wuxuu arkay bisad weyn oo agteeda markaasi ay wax ku cunayaan, mid cad iyo mid madow. Kadibna wuxuu gartay kuwani inay yihiin Yami familkeedii. Neefta ayaa ku dhagtay. Kadib markuu arkay bisadii oo gees u leexaysay ku yareeraa, asaga uu imanaysa, markaasna ku qaylinaysa. Ilbiriqsi gudaheed way ku soo booday, ayadoo markaasi aad u weynaanayso. Maalmo kadib saaxiibadiis ayaa guriga ku soo booqday, maadaama uu isagii shaqadii u iman waayay. Markaasi albaabka isaga ayaa ka furay, indhihiisana aamoodid si uun inay u fog yihiin. Xageebaad ku maqneed? Ayay weydiiyeen saaxiibadiis. Maxaa ku dhacayna hooyada? Taakuso kadibna albaabkii ayuu wada furay. Ka waran haddaa gudaha soo gashaan si aan wax walba niigu sheego. Saaxiibadiis gudaha ayay soo galeen, kadibna isla markii sanka ayay qabsadeen. Markii uu soo uray hilib markaasi gurmay. Maxaa weeye urkaas? Ayuu midkood weydiiyey. Taakuso kadibna albaabkii ayuu xiray, wuuna ku fulay. Wuu ku soo jeestay, wejigiisana wuxuu bilaabay inuu isku bedelo bahal bisad ah oo aad u weyn. Kadibna wuu qayliyey, ayakii ayuuna weeraray.